intaasay qorraxdu soo jiirsan doontaa dadku markaasay waxay u qaybsami doonaan qof waliba camalkiisii uu dunida ka shaqayn jiray hadduu wacnaa iyo hadduu u xumaa ayaa loo miisaami doonaa dhididka jidhkiisa ka soo baxaya xadiiska hore aynu sheegnay wuxuu tilmaamay dibadda dhididka u soo baxaya mid baa dhididku labada kuraamood ama canqawga u joogsan doonaa mid baa dhididkii ka soo baxay jidhkiisu labada low tegi doonaa mid buu guntiga halka laga xidho tegi doonaa mid buu xakamayn doonaayo afka sidaa u geli doonaa dhididkiisu markaasaa nebigu wuxu yidhi sal allahu alay wasalam wallaahi innii la arjuu an takuunuu rubuca ahli aljanna wallaahi innii la arjuu an takuunuu hulusa ahli aljanna wallaahi innii la arjuu an takuunuu nisfa ahli aljanna wallaahi waxaan rajaynayaa inaad jannada afar marka loo qaybiyo ummaddaydii qayb noqotaan saddex haddii loo qaybiyo aad qayb noqotaan laba haddii loo qaybiyana aad badh noqotaan baan rajaynaya faqaala annaasu allaahu akbar saxaabadii mar qura waxay yidhaahdeen allaahu akbar waa farxeen oo dee waxbaa soo go'ay markaasaa nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi faxiinaidin waa meeshaan u socdo khudbaddeenna u socoto faxiinaidin tadacu alxaamilu xamlahaa markaasay tii sidka iyo uurka wadday dhigi doontaa uurkeedii wa tashiibu alwaliidu kii yaraaya dhashayna ee la dhalay maxaan ku idhahda uu cirraysan doonaa yowman yajcalu lwildaana shiibaa waa meeshuu alla ka yidhi wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara buu nebigu sal alla alay wasalam xadiidkaas wuxuu si cad u qeexayaa arrintu meeshay ka dhacayso inay tahay maxsharka inuu yahay su'aal baa iman kartoo islaan xaamilaaya mid wax jaqsiinaysa miyaa aakhiro joogta maxamed amiinu shanqiiti kitaabkiisa adwaa'u lbayaan ee tafsiirka ah laba qowl buu ku keenaa isagoo ka jawaabaya aayadda ula noqo wuxuu leeyahay waxaa dhici karta su'aashaasi hadday timaaddo oo ma qof xaamilaaya mid wax jaqsiinaysaa joogta banka qiyaame qubuurta marka laga soo dareero laba jawaabood baa laga bixinayaaba inay arrintu tahay islaam walboo xaamila oo sidkeedii isagoo u dhammaaday isku guurtay oo saa ku dhimatay iyadoo aan weli dhalin iyo mid umul raacatayoo umushii ku dhimatay iyadoo naaskii ilmaha u dhigaysa ayaa markay buunka la afuufo bacsiga la soo baxo iyadoo xaamilaha bay xabaasha ka soo boodaysaa argagixii meesha yaallay ayay la dhaqaaqaysaa durtaba ilmihii uurka ku jirayba bannaanka soo baxay markaasaanay dareemin ilma inuu soo dhaafayba tii naaska jaqsiinaysana sidaasi la mida wayba ilaawaysaa kay naaska u dhigi lahayd wuxuu kaloo leeyahay sheekhu uu weli rajaxayaa amiira shanqiiti kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka waxaa suuragal ah buu yidhi arrintu inaanay sidaa ahayne argagaxa weyn ee meesha yaalla ayaa waxaa laga wadaa haddii mid xaamilo ah oo sadkeedii dhammaaday oo dhalmadii u hadhsan tahay ay jiri lahayd ama mid ilma naaska jaqsiinaysaa ay jiri lahayd oo dabeetana halkaa ay joogi lahayd sidaasay arrintu u dhici lahayd argagaxaya dhibaatada meesha taagan qowlkaasuu rajaxaya qur-aankana way ku timi iyadoo laga wado sidaa markii la caburiyey rasuulkiiyo saxaabada oo xaaladdu adkaatay waidzaaqat ilquluubu quluubtii markay iilatay oo absaartii indhihii ay iisheen waizaaqat alabsaar alla waa tulay subxaana wa tacaala gebagabadii alla markuu soo kaxeeyey subxaana wa tacaala wabalaqat ilquluubu alxanaajir watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuun wazulziluu zilzaalan shadiida wuxuu halkaa alla cabbiray in halkaa naftu timid oo zilzaal shadiidu alla cabbiraya dhulkuna ma gilgilane dhibaatadii taallay buu ilaahay taa ku cabbiray calaa ayan kaan xadiidku wuxuu leeyahay labada xadiis aynu soo qaadannay qorraxdu way soo dhowaanaysaa dadka waxay u jirsan doontaa qadra miil waxaa la yidhahdaa afka carabiga laba shay maylka kilomitir iyo badhka ah waa la yidhaahdaa miil qoriga yaree lagu indhakuushana miil waa la yidhaahdaa labadaa midkuu yahay wallaahu aclam intaasay qorraxdu soo jirsan doontaa dadku markaasay waxay u qaybsami doonaan qof waliba camalkiisii uu dunida ka shaqayn jiray hadduu wacnaa iyo hadduu u xumaa ayaa loo miisaami doonaa dhididka jidhkiisa ka soo baxaya xadiiska hore aynu sheegnay wuxuu tilmaamay dibadda dhididka u soo baxaya mid baa dhididku labada kuraamood ama canqawga u joogsan doona
mid baa dhididki ka soo baxay jidhkiisu labada low tegi doonaa mid buu guntiga halka laga xidho tegi doonaa mid buu xakamayn doonaayo afka sidaa u geli doonaa dhididkiisu xadiiska abu hurayrana wuxuu tilmaamayaa dhididka ka soo baxaya inta uu dhulka mukhuurayo markaasaa wuxuu leeyahy rasuulku sal alla alay wasalam 70 baac ayaa qofkaa dembigiisu kolba intuu la eg yahay dhulka uu mukhuuraya baac waxaa la yidhaahdaa masaafatu maa bayna alyadayn labada gacmo markaa sidaa u kala bixiso inta u dhaxaysaa baac la yidhaahdaa 70 baac baa dhididku dhulka mukhuuri doonaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaa adag qur-aanka waxaa ku timi cadceeddan waa soo dhowaatay rasuulku leeyahay waxaa qur-aanka ku yimi iyadoo la sheegay cadceeddiiba in la duubayo iyada iyo ilayskeediiba la duubayo ida shamsu kuwirat halkanna xadiisku wuxuu leeyahay cadceeddu waa soo dhowaanaysaa waxaa laysu waafajinayaa bay yidhahdeen culimmadu marka hore cadceedda soo dhowaanshaheedaa horreeya marka dhididkaasi baxo oo dhulkana mukhuuro dibaddana qof walba kolba dembigiisu intuu la ekaa uu u joogsado ayaa ilaahay cadceeddii amar bixinaya dadkiiyoo daawanaya in badanoo qorraxda caabudi jirtay ay taagan yihiin ayaa ilaahay duubayaa nuurkeedii iyadaba dabeetana ilaahay naartuu ku ridaya ihaanatan licaabidiiha iyadoo la dullaynayo kuwii caabudi jiray innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaah xasabu jahannama antum laha waariduun waxaynu walaalayaal marka isu dardaarmaynaa maalinka adag ayaa ina ka horreeya maalinka adag ayaa ina ka horreeya rasuulku sala allahu calayhi wasalam habeenkii markuu jiifsanayo adkaarta uu akhrinayo waxaa ka mid ahay ma uu seexan jirin ilaa uu yidhaahdo 3 goor ilaa uu yidhaahdo allaahumma qinnii cadaabak yowma tabcathu cibaadak ilaahayow cadaabkaaga iga ilaali oo iga kori addoommahaaga maalinkaad soo saari doonto maalinka nebi maxamed baa saa uga walwalaya qof walbo ina ka mid ah dunya aakhira saman baynu joognaa aakhiraa war jiraa qof walowba dib isugu noqo oo camalkaagii iyo ilaah waxaad la hortegi lahayd iyo war wanaagsan oo dunida aad kaga tegi lahayd iyo si wanaagsan oo aad u noolaan lahayd qof walowba ku